السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga waan islaamayaa. maanta iyo roob arligoo wada rooba ilaahay nagu nabadgelista wadaakum allah alladii laa yadiicu wadaaca. meeshaan waa wada roob, madar baa noo socda iyo qabow baa noo socda. marka bal ka warramo jawigan roobka oo saa loo socdo. waa jawi mumtaasa, jawi mumtaasa weeye. roob socdo oo qabow socdo oo qabow hadee aan ahayn marra qabow iska maaragtaa wanaagsan, jismiga u wanaagsan. waxaas baabuura waa wada ijaar soo maaragtaa. waxa baabuura waa meeshaa dhooban waa wada ijaar. haddeer haddaad ijaaratid maalinta waxaad $25 baad ku kiraysanaysaa, marka $30 baad ku kiraysanaysaa meelahaas. marka waa kaas daysay u yaalaan. waa mumtaas weeye saa idin sheegay. maasha allah tabaaraka allah. marka walaalahayga waxaan idin leeyahay waqtigu ha idiin wanaagsanaado. casiisiin mukaramiin baad tihiin, agtayda ka tihiin. casiisiin mukaramiin baad agtayda ka tihiin. ilaahay subxaana wa tacaala waqtiga ha idiin barakeeyo oo sidaan oo kale waddan maaragtaa aan ilmahaaga laguga haysan oon dhib kaa haysan. ilaahay ha idiin kasto dhammaantiin. ilaahay dhibta adduunka iyo dhibta aakhiraba. wallaahi meel walbaba dhibta waa iska adduunkan waa iskaba waaba itixaan. ilaahay itixaanka kuwii ku baasa oo ku liibaana allahayna ka dhigo. itixaanka kuwii ku baasa ilaahay hayna ka dhigo yaa rabbi. ilaahay itixaanka naguma dilo, itixaan naguma dilo oo naguma dhibo oo naguma tahluukeeyo. isaga caadil oo raxmaane. meel waxaan soo maray dad ku xiran yihiin. ilaahay iyagana ha ka farajo, annagana nama soo gaarsiiyo. annaga iyo waxaanu ka naxanaba meel lagu xiran yahay oo meesha caamkaayoo weyn oo lagu xiran yahay ayaan soo agmarayo. bahalka waan ka damiyey. waxaana leeyahay ilaahay subxaana inta ku jirta allaha uga farajo, allaha uga farajo. annagana ilaahay nama soo gaarsiiyo, annaga iyo intii islaamaba. intii saasoo kale meela ku jirto sijimadaasoo kalena ilaahay ha ka badbaadiyo. muslimkiisa allaha ka badbaadiyo. ama beled ha ku jira ama baadiye ha ku jira ama beledkayga ha ahaato ama beled gaala ha ahaato ama beled muslin ha ahaato. ilaahay ha ka nabadgeliyo, ha ka badbaadiyo. ciyaalada ku xiran iyo odayaasha ku xiran iyo islaamaha ku xiran iyo dadka ku xiran ilaahay ha ka badbaadiyo. annagana allah naga badbaadiyo, annaga iyo intii islaamaba. allaahuma ikfiinaa bishara haadaa dunyaa. adduunkaanaaba iska itixaama, adduunkaana iska itixaan khaasa ah wallaahi. laakiin ilaah baan waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga nabadgeliyo. waa maryoolayda aadna bacayd adiga iyo qola aan garanaya. islaan cabaayad qabtoo baabuur wadda hadday arkaan nin qolaa ka xanaaqan aad mooda inay gaariga la iibsadeen. iyagu neefta ku dhagaystaa war laa ilaaha. taasoo kale waxaa la yidhaahdaa xasadka oo ah narjasiga ah. qof baabuur wato war iga leexa, bahalka laambadda ku bagbagsi ha kaa leexatee. marka ilaahay subxaana qaadir allaha naga nabadgeliyo, annaga intii islaama. intii sharle sharkeeda allahayna ka nabadgeliyo. allaha inoo naxariisto, inoo dembi dhaafo, hayna xafido. meeshaan waxaa weeye labadan beri roob maxaa kaa galay hadda ayay maasha allah tabaaraka allah oo mumtaasa. wallaahi anigu waan jeclahay roobka iyo qabowga iyo maaragtaa ilaahay subxaan roobkaas ilaahay keenay. qof aadamiya oo hal dhibica oo rooba ama biyaa soo saari karana alla aqbalinin ma jirto. ilaahay isagaa wax aqbala, isagaana ugu wanaagsan inta wax soo saarta. alxamdulilah, shukri lilah. ilaahay baan ku mahadsan. marka waxaan idin leeyahay waqtigu ha idiin wanaagsanaado.
saacadu ha idiin wanaagsanaadeen, maalinta ha idiin wanaagsanaato walaalahayga. meeshaan waxaa laga raacaa baabuurta Yamantaa laga raacaa. Yaman haddaad u socotid halkaasaad bas ka fuulaysaa. Ana hadda idin tusay baad bas ka fuulaysaa. Sanca ama cadan bay ku dhex dhigaysaa. Ha garateen. Wada meelaha dhigtaa gaariga kuu raacan. Halkan waxaa laga dhigay saxmad. Meelahan waa saxmad iska socod. Meeshaan waa suuqal beledki, meel ugu saxmad badan adduunka. Meesha ugu saxmad badan weeye adduunka meeshaan. baabuurteeda iyo saxmadeeda iyo naga xijaabinta insha Allah. maanta dhakhtar baan soo aaday walaalahayga. dhakhtar baan soo aaday meeshaan suuqal beledka ku yaal. ma garateen waxaan u soo raadsan oo ku yaala wallaahi oo ku yaalaan u soo raadsan haddaad iga rumaysanaysaa. hadda halkaan inaad ka baxdid bayda meel halkan meel ka raadsata ay istaagtid kaa ina meelaha dhigatid bay intaa gudaha geshta. meeshaana saxmaad bay dadkii nafta ugu keentay. yaa allah xamudo kaa yarkaa ma fiirin kartaa? kaa yarkaa fiiri. meeshaan saxmadeeda iyo baabuurteeda walla iyo kaa fiiro yarkaa ag istaago kaa fiiro. bal fiir halkaan istaago way intaasoo isaga laga helaayo. dhakhtarkaanan ka fiirin ta'miinkayga balanu ka shaqeynaa. meeshaan dhakhtarkaanan soo aaday walaalahayga. dhakhtarkaanan soo aaday. waxaan u soo aadayna waa ookiyaale inaan ka fasasho inay indhahayga baxasaan baan u soo aaday. sababtay tahay waxaa laga yaabaa il maalmeed inaan kitaabka haysto. il maalmeed inaan kitaabka haystaa laga yaabaa. marka saasaa indhaha xanuun igu keeneen. marka waxaan rabaa inaan ka qaato. ilaahay subxaana wa tacaala waalidkeen iyo waalidiinteenba ilaahay ha xafido ha caafiyo. intii nool intii dhimatayna allah u naxariisto. oo ku yaalana ma ay raadin jirin waxna ma ay raadin jirin see cunno dabeeciya bay cuni jireen. cunnada hadda wadankii la keeno oo dhacday oo daawooyin ku dhaceen anaa ku jiraday. daawo la igu duray dhakhtar la igaga duray anaa lugtiyo isuuxday baan arkay. lugti markii la iga sinta waxa layga qabtay dhabarka faqra sinta layga qabtay. dhakhtarkan tagay irbad baa laygu dhuftay. irbadii laygu dhuftay waxay igu sababtay inay lugtoo dhan isuuxdo. waxaa keenaya daawo dhacsan daawadii loogu talagalay muxuu ahay talafo haysan ahayn. waxaan ku leeyahay marka ilaahay subxaana wa tacaala horta wadankeeni waxaasaaba haystee daawo dhacday iyo bariis baca iyo muxuu ahayto cunno aan ahayn maaragta cunno sax ahayn. balaayadaa unbaa wadankii duulaysa. ilaahay subxaana wa tacaala hayna ka nabadgeliyo annaga intii islaamaba allah hayna ka nabadgeliyo. allah ina ka xafido dhammaanteenba. wixii muslimiinta dhibahayana ilaahay xaqa ha fahamsiiyo. xaqa allah soo fahamsiiyo. waa dhibaato weeye wadankaagii oo dhan oo daawo cudur un dadkii ka bixi waayo. waxaasna waa daawada dhacday iyo raashinka dhacay iyo wax dhacayo dadkii la siinayo. waxaan leenahay ilaahay subxaana ilaahay annagoo dhah naga nabadgeliya annaga intii islaama dhammaanteen. waxaan leeyahay waqtigu iyo maalinta iyo saacaddu haydiin wanaagsanaato. ma garateen ilaahay haydinka nabadgeliya idinkana allah idinka nabadgeliya annagana ilaahay nama soo gaarsiiyo walaalahayga. ilaahay hayna nabadgeliyo ilaahay idankiisa. indhahana ilaahay nagama rido. indhaha waa waxa weeye waa iga istaag aan socdee dhiiq baa lagugu leeyahay. waa iga istaag aan socdee. ilaahay noo dambi dhaaf annaga intii waalidka iyo waalidiintiiba iyo ehelka iyo muslimka oo dhanba allaha noo dambi dhaaf isagoo caadile. axmoodo meelaha kan istaag.